aniga oo ah Yaxya Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan agaasimaha Kelson TV ee Geeska Afrika waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo kooban sida uu dhigayo qodobka tobnaad ee xeerka saxaafadda Soomaaliland xeer lambar 27 2004 saxaafad kasta waxa ku waajibay inay xaqiijiso wax soo saarkeeda saxaafadeed in uu ahaado mid run ah oo dheelitiran sidaas darteed aniga oo ka duulay qodobkan misna ixtiraamaya sharafka iyo karaamada mas'uuliyiinta asxaabta iyo qarankaba waxaan raali gelin buuxda ka bixinayaa muuqaal dhawaan lagu baahiyay baraha bulshada oo hordhac u ahaa barnaamijkii warisi ee ka bixi jiray Kelson TV kadib markii aanu daraasaynay isla markaasina aanu rogrognay run ahaantii muuqaalkaasi waxa uu noola muuqday mid been abuur ah oo la isku kabkabay sidaas darteed waxaan gabi ahaanba joojinay inuu barnaamijkaasi ka baxo telefishinka Kelson waxaanu raali gelin buuxda gaarsiinay dhinacyada ay khusayso amuurtani oo kala ah gudoomiyaha golaha wakiilada ahna musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo waftigii uu hogaaminayay gaari dalkaasi Nairobi waxaan sidoo kale raali gelin gaarsiinaynaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyagu bariyihii ugu dambeeyay ku dawaqay muuqaalkaasi sidoo kale waxaan raali gelin gaarsiinaynaa musharaxa jagada madaxweyne ee dalkaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu ahaa kii lagu wareystay barnaamijkaas sidoo kale waxaanu halkan ka cadeynaynaa in aan gabi ahaanba shaqadii ka joojinay wariyaashii kale ahaa Maxamed Yuusuf Bakeyle iyo Cabdirasaaq Yuusuf Cali Teera kadib markii ay ku xadgudbeen xeerka saxaafadda caalamiga ah ee Soomaaliland iyo waliba cunfiga islaamnimo iyo Soomaalinimo oo ay nafaraya in aynu ka fogaano gabi ahaanba beenta iyo been abuurkaba waxaan halkan fariin u marinayaa dhammaan saxaafadda Soomaaliland inay ka fogaadaan wixii been abuur ah iyo waliba kicinta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan fariin farayaa xisbiyada mucaaradka iyo muxaafadka waan leeyahay ka fogaada oo ha ku milmina oo ha ka faa'iideysanina idinku oo hankiina siyaasadeed isla ku gaadha waxyaabo xaqiiqada ka